caawa waxaan tusi doonaa 10 aad u muhiim saaxiibayaal 10kaas wuxuu yahay Google Drive-ka sidii aad ugu darsan lahayd computer-kaaga marka waxaad ku qoraysaan add Google Drive to desktop waxaad soo bixi doonaa install drive meesha ku qoran tahay haddii taas ku soo bixi weydo ka koowaad mar u dooranaysa ama use Google Drive kaasa ku soo bixi doona ama install drive oo isku mid labaduba waa isku mid okay ka hooseba ku dhufo ku taalo use Google Drive halkana waxa ku soo bixi doona marka labada software waayahay kaas ay ku qoran tahay Windows-ka ayaynu ku dhufanaynaa kaasaan ku dhufanaa download baan leenahay waxaa soo roganayaa software-kan saas ugu soo degiyaa adiga waxa laga yaabaa inuu geeska ku tago saadaradeed waxaan ku dhufanaynaa meesha ku qoran tahay start download markuu soo dego aynu computer ku duubaynaa kii noo soo furmay open baan dhahaynaa open markaan dhahno waxaan dhihi doonaa yes waynu ku duubaynaa install baan dhahaynaa way application shortcut ka xitaa waxaad geysan kartaa waa kan halkan aad geysanaysaa install baa dhahaysaa wakaa marka dhamaado waxaa ku dhufan doontaa meesha ku qoran tahay launch maraa ku dhufatid waxaa gashan doontaa waxa loo yaqaano Gmail-kaaga ayaa gashanaysaa waa kan kadibna waxaa leedahay get started ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa leedahay sign in account-kaagii ayaad gelaysaa sign in markaa dhahdaan daaqadaas aad soo bixi doontaa kadibna haddaad doonto tigta saar kadibna waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay next ayaa taabanaysaa next ayaan taabanaynaa oo kaas soo gabagabaynay waxaa leenahay next kadibna waxaa leenahay got it okay waayahay so haddaad rabto inaad backup ku qaadato pictureskaga waa saaraysaa haddaad doontana waxaad dhahaysaa waxa la yidhaahdo skip ayaa dhahaysaa waxaad leedahay keyboard so inagu badhankan hadeer waxaan dhahaynaa skip ayaan dhahaynaa waa kan skip ayaan ku dhufanaynaa skip markaan ku dhufano waxaynu si doonaa folderskaaga and the selected folder will start waayahay desktop wuxuu dhan kadibna waxaan leenahay next waxaan leenahay okay next waayahay kadibna waxaan leenahay open drive okay intaa markaa dhamayso waxaad isla qabanaysaa badhanka Windows iyo E markaad qabato waxaa ku soo baxaysa daaqadan waxaad tegi doontaa meesha ku qoran tahay this PC kadibna wakaa Google Drive-ka Google Drive-ku laftiisu wuxuu soo gelayaa shaashada waa idinka arkaya